markaas un baa lacagta lagu soo shubi doonaa baa budget line way leedahay waxa kala boorka laftigii uu ku jira qof ka socda ururada bulshada marka su-aashuna weydiiyey xildhibaan maxamed mm wuu ku jira qof ka socda ururada bulshada hadday cabasho joogto loo soo gudbin karaa oo waxaa ku jirna mihnallayaashiina oo ah qof caafimaad ka shaqeeya oo ka socda marka cabashada waa la eegi doonaa marka hadduu wasiirku jecel wax kale ku daro waan siin doonaa jaanis wasiir cali wax kale ma doonaysaa ku darteen mahadsanidin magacaaga maan sheegin oo ku jawaabay su-aashaadii xildhibaan sug alehaab meesha horta sug xildhibaanka markii oo wasiirka mase ha noqdo mase guddoomiyaha guddiga ha noqdo markii jawaabaha laga jawaabahayo xildhibaan hebel su-aashiisii waan ka jawaabaya xildhibaan hebel xag buu taas magacaabis tii magacayga la qaaday la dhihi jiray ma aha taas horta warkayga ma fahantay maya raali ahaw magaca sheegista saas ma aha wasiirka markuu jawaabahayo fiiri xildhibaan wasiirka xildhibaannibaan u jawaabaya waana sheegaya guddoomiyaha guddigan markii su-aalaadka xildhibaanada ku jawaabahayo xildhibaan jaamaca saasuu yidhi saasaan leeyahay xildhibaan barre saasuu yidhi saas waa taas magaca sheegista laisku qabsanayo taas maaha xildhibaan inaan kusayso ma rabaa ma fiicnasay ya isaada waa u qaadan karta laakiin magacaygaa la sheegay ma jirto ma dhihi karto taas بسم الله الرحمن الرحيم أنا waxaan rabaa hal mid weyn la cadeeyo qodobka toddobaad ee xeerka tayadhowrka Soomaaliyeed oo xeer dhaqan gal ah baan halkan ka akhriyaa faqradiisa saddexaad waxaa ka mid ah hay'adda tayadhowrka laga hadlayaa hay-adda iyadoo raacaysa sharcigan iyo shuruucda kale ee dalka waajibaadkeeda waxaa ka mid ah marka faqradda saddexaad eega inay diyaariso halbeegyo standards baa lagu sheegay iyo cabiro looga hortegayo waxyeelada caafimaad oo ay keeni karaan bulshada ay u keeni karaan bulshada cuntooyinka iyo daawooyinka dhacay kuwa tayadoodu hooseyso iyo kuwa si ula kac ah tayadooda hoos loogu dhigay qodobkaasi hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed wuxuu siinayaa awood dhinaca daawooyinka waa sababtaan u leeyahay dhegeyso anigu xeer qoran baan ka hadlaya kama hadlayo malaawaal kama hadlayo xeerkaasi wuxuu siinayaa hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed inay dawooyinka ka shaqayn karto marka intaasun baan guddoomiye sheegi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantahay xildhibaane maxamed aadan daahir mahadsanid guddoomiye ugu horreyntii waa idin salaamaya dhammaan xildhibaanada guddoonka saxaafadda iyo dhammaan waa idin salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu maanta waxaan u taaganahay halkan sharci dalka iyo dadka muhiim u ah maadaama aan aniga aaminsanahay sunta koowaad ee dalkan taale inay tahay daawada oo dadka Soomaaliyeed ay u isticmaalaan si qaldan oo dhammaan dadka cudurrada dilo haddii ahaan lahaayeen waayeelada oo kaniiniyaasha xoojiyaha inta cuno ku dhinto oo dhiikar iyo cudurro kale ku rido haddii ahaan lahayd بريان دب waxa soo batay oo la leeyahay gabdhaha jirka marsanayaan oo qasqaska iyo la leeyahay oo chemicalka oo hadina la xayisiinayo hadii ahaan lahaay daawooyinka la leeyahay waa ku cayilaysaa wajigaada cayilayo oo gacmaha iyo lugaha iyo waa buurinaysaa
waxaasoo dhan waxay u baahan tahay wax ka qabasho si aan xishood lahaynin oon kala har lahaynin waayo waddankeenna waxaa og tihiin aniga waxaan ahay safaaradan ka shaqayn jiray dhibaatada ugu badan oo dadka soomaaliyeed dibidaha u tagaano waxa waaye kansar maqaarka ama jirka ku dhaca ilwaanada sharafta leh hala aamuso ilwaanada sharafta leh hala aamuso cudurrada ugu badan ee dalka dadka ku dhaco dibidaha loo qaado waa kansar waxa sababana waxay tahay waxyaabahaas oo sida xaddi la'aanta loo isticmaalayo dad juhale ah oo reebaadiye ah inta meel furto wax isku dardaro xayeysiinayo waxa ka gadanaya dad wax bartay oo haddana isticmaalayo waddankan xad male arrintaas waa farahay ka baxday dhibaatadeeda badan midda kale shirkadaha daawooyinka soo sameeya Soomaaliya marka dibadda tagto waxa lagu leeyahay quality Soomaaliyeed ma rabtaa mase quality kala rabtaa oo qofka inta loogu tala galay oo ku qoran 500 miligram ama 1,000 miligram meesha ugu qoran tahay waxa laga yaabaa dhowr miligram 4-5 miligram in lagu soo cabeeyo arrinkaasna wuxuu rabaa dadkaas in lagu xisaabtamo oo dhibaatadii ummadda u geysteen laga jisiyaa loo baahan yahay aniga haddaan su'aalahayga galo su'aal oo common ah oo xildhibaanadii ugu horreeyay inta badan ay ka dhawaajiyeen waxaa jirta sida la isku waafajinayo hay-addan daawada iyo hay-adda quality control dalkeena waxaa og tihiin ina mahaamta shaqooyinka aysan kala cadeynin oo wasaaradaha badanaa ay wax isku qabsadaan ama shaqooyinka la isku qabsado arrinkan daawada arrin oo la isku qabsanaa waayo oo wasaaraddii kaloo ganacsiga waxay leedahay quality control ay leedahay ayadaa hadda xooggan oo dekadii joogto meel walba joogto strong ah sidee loo kala cadeynayo mahaamtooda in la kala caddeeyo sharciga hore oo quality controlka inta marina lagu soo laabto oo labadii hay-adood loo kala sameeyo shaqo kala baxsan oo kala baxsan waayo haddii kale shaqooyinkaa la isku qabsanaya hay-ada ku xoog badnaanayso hay-adda kalea laga adkaanaya shaqadii kale hay-addii kale tanaa qabanayso taas waxay u baahan tahay in la xakameeyo maadaama aan ognahay dalkeenna inuu federaal yahay dekado badanna aan leenahay dowladda Soomaaliya hadda dekada ay maamushay gacanta ku haysa ee tahay dekada Muqdisho dekadaha kale wixii ka soo degay dalka waxay ku soo galayaan si oo sahlan haddii annaga sharci dejino oo maanta sharcigan xamar bas oo khuseeyo sidee marka daawada ka imaanayso dadkeenii sunta soo gaaraysa baadiyihii ii joogo ama gobolladii kala joogo sidee looga xakamaynayaa ayadana waa su'aal u baahan dhaqangalkeeda iyo shaqadeeda ugu baahan dekada Berbera ugu shisheeyso wixii ka soo dego ana reeyiraanana waa noo yimaadeen si oo fudud oo waliba xamar alaabta ka imaanaysa ka sahlan ay ku imaanaysaa marka sidee marka loo xakameynaya inta lagu xakameynaya oo hadda wasaaradda iyo guddiga u sameeyaan arrinkaas midda kale waxaan qabaa kaniiniyaasha la xayeysiinayo waa aragteen qofku wuxuu ku leeyahay banaanka waxa laga xayeysiinaa tahay stop qofku wataga farmashi wuxuu leeyahay tahay stop still tahay stop ma la isticmaala maxaa loo isticmaalaa kaniin walba tusaale u soo qaadanaya arrinkaasne waxa waa xayeysiinta loo sameynayo ama ashqaas ha sameeyaan ama idaacad ha samayso hadda dadkii waxayba kala socdaan TikTok iyo Facebook-yada wax walba lagu xayeysiinaya wixii wax anshax xumo ah oo dhaqan xumo ah waa aragtaan qof waayeel oo laga hadal siinayo oo looga hadal siinayo arrinka la leeyahay ii sheeg waxyaabo anshaxa u fiicneenna qofku wuxuu leeyahay waa leega daaweey dhakhtarkaana iga daaweey marka qofkii maalmo kadibna waxaa arkaysaa asagoo cabanaha oo dhahayo hebel waa isla bararay ama saanuu noqday ama dhibaatadana ku dhacday waxaa jira arrinkaas wasaaradda caafimaadka waxaa loogu baahan yahay inay aad iyo aad arrinkan shaqo fiican ka qabato oo juhdi fiican ku sameeyaan hadda maalmahan waxaan aragnaa waxaa la xiray isbitaalle la xiran aragnaa laakiin waxaan rabnay in la maxkamadeeyo oo maxkamadaha ayagoo taagan aan aragno inaysan ku ekaanin CID iyo aysan ku ekaanin ama farsamooyin kale lagu sii deynin arrinka kaloo qaba waxay tahay dalkeena dhaqaalihiisa waa ogtihiin hay-addan hadda la dhisaayo maareeye ku-xigeen way qaadi kartaa laakiin maareeye ku-xigeen labaad intee la geynayaa tusaale hadda hay-adda immigrationka Soomaaliyeed 10 ku-xigeen ay leedahay maxaa ku-xigeen walba qofkii mishaar in looga qoro shaqo abuur miya waxaan shaqo abuur ma aha shaqada in la qabto 2 ruux ka badan hay-adda ma qaadi karto ani ma qaba in 2 ruux ka badanna loo sameeyo marka arrinka muhiimadiisu waxay tahay in ku-xigeenkaas labaadne
laga baabi'iyo waa qabaa arrinka kalena in arrimahan kaloo dhibaatada ah wax la iska indhatiri kara ma aha in maanta aniga commercial attachee ahaan jiray dibadaan joogi jiray waa lagu sheegaa waxa lagu leeyahay baastada Soomaali loo sameeyo ma rabtaa mase baastada xamar dekadis ku dagaysa ama Mombasa ma rabtaa teerta waa lagu weydiinayaa marka arrinkaas annaga baarlamaane sharci dejiyaal nahay qawaaniin adag oo dhaxalgal ah oo dadka wax u taray inaan ka qabano waa wadankeena chemicalka ku batay qof kasta waxa la hebel kansar u qaba qof hebel kansar u qaba mid kale kaniiniyaasha banaanka intay ka soo gataan dadka waaweyn oo intay isticmaalaan oo fiyaagara iyo hore ay ka dhimanayaan dhiigkarka ka dilaayo arrinkaas wuxuu u baahan wax in laga qabto hay'adan in la tayeeyo awood intay hadda leedahay ka xoogan loo sameeyo si ay xukuno iyo wax badan u samayso annaga waxaan fuutay hebelow lacagtan qaado dalka inuu ka dhamaadaan rabnaa waxaa ognahay daawo dhacday ama raashin dhacay suuqa bakaaraha inta la geeyo oo timbara la haysta lagu soo dhufana waxa leeyahay iyadoo dhacday 2025 2027 laga dhigaayo sax maaha arrinkaas waxaan rabnaa in wax laga qabto dadkeenu way dhamaanayaan way ba'ayaan meel xun ay maraysaa xaalka daawada Soomaaliya waa mahadsantihiin waa idin salaam mar kale xildhibaanku wuu mahadsan yahay xildhibaan maxamed abuukar cabdi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركن كوريت سلامة دمانتين قدوميها يحنا قلع شعب كذا يساسو كلا صحافة دمانتين سلامتين. سلام كديب ويبقى إذا كفرح سنة شرع الداود وأنا يوم الإسلام ما يكون مدة شرع إذا كمهم سن قدام كان لسما يفرق. ولي بحلقة هتلروج يوقفي الكجار إذا باتوا الداوين كدي قدام كي يضطربك هاي. ما إزلا وين مهم يعني ما إلا شرع لنا سماي. لكن تاسي إذا كمان نيجي قدينا كمان سنين ساسوك الوزارة دي هدي عردين ساسوك إذا كمان سنين. أنت أسكتي بوي فضاي هل لما شيء إن أنا ما إلا راح كهذا تنكود شرعية هي أدا ونتوقع أساسا كلية ما يك هذا أنا مقعابي كلية لكن شقوين كيو بلشدن قبض عيان ما تهموقت لكن وين رجعنا وزير كنا ما دام الروجة هيئة هذه اللي دسني نعن تودت لك شق على سيو كلية أنا نعن نميل فرصة دلنا كسمة يوم أنا كلية نعن نميل قف قرابة اللي جيسوا كلية معنا لكلي معنا لك فضاء وني نعن معنا بلشيد الصومالية دبعت الداوين كهاي تتحكم يوم وني نعن ولي ما يمكن مهم سنة أزلها مدة يمكن قدام بوزارة القرشة يقول لنا نقول أيوة تلاقوا يمكن لك قاضي دور حلبان وران ku hadleen daawooyinka la isku qurxiyo iyo qalabka waxyaabaha laga isticmaalo kiimikooyinka oo dad illiterate ee wala ankasaana sameeyaya talaabo si wasaaraddu ku qaadi ma ku diyaarsan wasiir way faday su'aalo sanadin ku jawaab ma socotay muddooyinkan ku dambeeyay ani daawooyin qasqas waxyaabo la yaraw deegaanaha ka korre gabdhii Soomaaliyeed dhibaato weyn ka haya waliba dad walba fahansanayna kiimikooyin dhisnaa iska darahaya dhibaato badanna caafimaad ahaan injeysadayaan markan wasaaradda tilaabo iyo ku qaad ya jirta haddii aan ku qaadnaan qorshaysan tahay arrimaha noocaas ah iyo meelaha la ku furi hata daawooyinkaas la ka isticmaalo tilaabo la ku qaado doono su'aal asway waday jawaabtiye ugu dambeyn may seeday ma ila raay qodobka 14 iyo way ku hadalay dadka nooca criteria lagu baahan yahay dadka lang magacaabo hay'adda way kaliya leeyihiin hay'adda shahaado caafimaad iyo khibrad shan sano ma islaam ka filan وين كفيلنا هنا خبرة عاف ما دنا لك حسوم ميل ما دام لك هذا لاي داود ما دام لك هذا لاي كنترول داود الصومالي حق جلاس لك هذا الآن قلب كاس مكفيل أنت تكش قداس اللي بدو أني خبرة جامعات كلية هاي سدا وين لمباه أني لك هذا أنا جد ولا يهبر ذن إتس خبرة عاف ما شهادة عاف ما هاي سدا لنا خبرة أنا ويران إلا توم من سنة لك وين ولي بميسي عطري صومالي هدي أنا ونسكسان dhammaanteen way mayba ku shaqeeyna waxyaabo macnan lahayn hatta hadii suurta galaas ani dad khabiiriin hatta dad ajaanib la dhiibido korheedaha noocaas sababtoo Soomaalida waxyaabahan ka badan dhibaatadan ka badan wadankan haysata daawo dhiidiyo dadka kansaran dhamaadahaya
way waa may fadaane ku codsadaane dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka isbitaallada ani ilaahay ku obsadaan umutun walbaabi daawo dhiidiya laka dhamaayo umutun walbaabi dhakhaatiir qualified ahayna baabiyahayaan qof la xisaabtamahayona ma jar marka way fadaane hay-ad aan qalanta awoodda la xisaabtamo korto kor joogtay korto ogaado korto dhibaatada la kahaaye bulshadan soomaaliyeed ku jawaabo korto aniya nagata markan dadka khibradiyo isaas oo kale waayo habardan ani nagata caafimaad keliya ani leer jaamacad lan IT ha ku bardi mise ganacsi ha bardi mise finance ha bardi may daawada ku qabado kore mise ku fahmi kore markan qodobkaas may codsaday in la ka bedela lanka dadka xubnaha lan magacaabo in dad waxa caafimaadka bardi nagadan khibrad iyo tumusina la gawaleeda ma sidin salaamu calaykum waraxmatullah xildhibaanku ma siiyay xildhibaan Maryan macalin adiga guddigii hawsha keenay baa tahay jawaab caadiya lagu siinaya wax aragtida ku darso markaas sug ya adiga guddigii caafimaadka soomaaliya adiga arrimaha bulshada warka dhan baan ku siinayna adiga ku darso wax aragtiisi oo voice of honor iska dhaaf wixii qaldan meesha ku sheeg adiga aad ku arkaysiin inay qaldan yihiin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جونك برلمانك وسارة عافمانك يا هولودينا هذا هولودينا هذا برلمانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سجار السلام يا كنت هرمبرين تأذيك بالشدة وانسجوني وسلام يا وما أنت برنامج شان halkaan quruxda badan noo keenay xaqiiqdii waxa weeye barnaamijkan barnaamij qiimo aad u qiimo badan waay hadduu siduu yahay amase sidii loo qaato amase loo aqriyo amase loo isticmaalo xaqiiqdii waxa waaye barnaamij maanta ka qiimo badan ma jiro barnaamijkan maanta waddankeenna meeshuu marayo waa garanaynaa caafimaad ahaan haddii la dhaho bini aadanka keliya maaha caafimaadka xoolaha iyo dadkuba waxa waaye caafimaadka xoolaha hadayna qabin annagana caafimaad ma qabno barnaamijkan waxa waaye waxaan rabnaa waa u mahadinaynaa dadkii halkan soo istaagay oo ka qayb qaatay talooyinkoodana waa qaadanaynaa anuu naftay guddigan ka mid ahay talooyinkoodana waa qaadanaynaa waxyaalihii oo ay nagu saa'idiyeen oo aqoontooda ahaydna waa ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay barnaamijkan aad iyo aad baa loogu baahan yahay waddanku baahi badan buu u qabaa maanta waa ogtiin meeshuu dalkeenu maraayo maanta waad aragteen dadkeennii sidai dadkii igu horeeyay ay ka sheekeeyeen xaaladooda meeshay marayso maanta waad aragteen gabdhaheennii maanta waxaan aragnay intaas oo qof oo gobol u go-aya daawo ay ismariyeen oo korkooda biyo iyo malax ka dareerayso haddaad la socotaan haddii kaleba waa gariiray wiil la dhihi jiray iyo gabar wuxuu ama aqaane ninkaas maanta waa sakiraad waa dhintay hadda waa yeeraysay gobol uu u go-ay wuxuu u go-ayna waa caafimaad darro iyo daawada uu ismarinaayo marka waxaan leenahay idinkoo mahadsan waxaan leeyahay taladiinana waa qaadanay waxaan codsanaynaa in maaragtay si fiican maaragtay aanu looga shaqeeyo annaguna wixii nalagu taray waanu qaadanaynaa idinkuna garabkiina istaaga yaan laga dhigin hashu hadday maqaarka diidayso ilmaha diidayso meelo daloolay ka daydaa dadku waa iska jiraan dad wax siyaasadeeya laakiin waxaan leenahay ummadda danteeda waaye waxaan idinku codsanaynaa idinkoo mahadsan inaad maaragtay barnaamijka aad maaragtay sidii loo ansixin lahaa wixii ka dhimna loogu dari lahaa annana waa qaadanay inaad nagu garab istaagtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baa u mahadsantihiin xildhibaanadu way mahadsan tahay xildhibaan Suleymaan علي بسم الله الرحمن الرحيم بدونك حلواننا شرفت له بهذا ورباهنته دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxaan rabaa in fara badan baa instructionka hay-adda iyo qaab dhismaadkeeda iyo wax fara badan laga hadlay waxaan rabay inaan xoogaa aan yaro iftiimiyo
maadaama akhriskii labaad ay ku jirto waxaan rabay inaan yaro iftiimiyo muhiimadda iyo hay-addan shaqada ay leedahay. waxaan marka koowaad aan aada ugu hambalyeynayaa wasaaradda caafimaadka iyo guddiga adeega bulshada oo guddoomiye u tahay inay soo gudbiyaan akhriskii labaad ay marayso. runtii baarlamanka shaqadiisana waxaa muhiim inoogu ah maadaama baarlamanka soomaaliyeed aan nahay waxyaabaha bulshada la falgelaya ee wax ka beddelka nidaamka dawliga ah horumarkiisa ka qayb qaadanaya in la sameeyo. runtii aniga lafteedu shaqaalaha caafimaad baan ahaa, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa in wasaaradda horta caafimaadka awooddeedii la siiyo. dad fara badan baa cabanayo le maxaa waxaan loo qaban waayey, dawladdu maxay waxaan u qaban weyday. dawladdu bilaa xeer waxa ma qabato. waa in hay-adihii ku shuqulka lahaa ee awooddan fulinayay ee hawsha ka shaqaynayay la aasaaso. marka hay-adda daawooyinka iyo agabka caafimaadka runtii waan ku bogaadinaynaa in maaragtay structurekan soo gaadhay. hay-addu waxay awood u yeelan doontaa maadaamay dad bahda caafimaadka wada ahayn. hay-addu awood waxay u yeelan kartaa inay xakamayso daawooyinka iyo qalabka caafimaadka. marka laga hadlayo qofka xanuunsanaya ee beyshinka ah markuu dhakhtarka u tago, dhakhtarku wuxuu wax ku qiimeeyaa waxaa la yidhahdaa 25% weeyaan baaritaanka dhakhtarka qofka xanuunsanaya inuu 25% inuu garto qofkaas halkuu ka xanuunsanayo. 25na waxaa la yidhahdaa waa qalabka marka dhiig laga qaado qofka lagu baaro. waayo qalabka caafimaadka la socda qalabkii caafimaadku haddaanu ahayn qalab quality leh wixii baaritaanka dhakhtarku diray ma soo baxay. 25 kale waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan qofkii aqoonta u lahaa ee baadhayay dhiigga baadhayay dhakhtarka uu diray. 25 soo diray waxaa laga hadlaa quality-ga dawada 100 saas isku buuxinaya. marka waa muhiim in la sameeyo dhowr shayba la controlo dawooyinka iyo waxa loo yaqaano dawooyinka nafaqadaysanba oo ay cosmeticsku xataa soo hoosgelayaan iyo qalabka caafimaadka ama diagnostic medical equipment. waxaad og tihiin in ay dalkeena ku badan yihiin ay dal dee wax walba lasoo dejinaya maadaama hay-addu awood ay ku xakamayso wasaaraddu aanay lahayn in awood loo siiyo controlka daawooyinka narcoticska. waxaad aragtaa dhalinyaro xididka iskaga duraysa tramadooshii oo dariiqa la dhacdhacaya. waxaad arkaysaa farmasiye iska gadaya dawooyin aanay xaq u lahayn inay iibiyaan. waxaa jira farmasiye fara badan oo dawooyinka storage iyo qalab ay ku kaydiyaan haysin oo ay iska soo gadanaya. hay-addu waxaa kale awood u yeelan doontaa iyo wasaaradda caafimaadkuba in ay diiwaangelin u sameeyaan calaa product calaa dawo kastoo imanaysa waddanka aan laga diiwaangelin. iminka Kenya iyo Ethiopia productiga haddana ilaa wasaaradda kasoo diiwaangelinin kama dejin karto. waxaa jira oo kaloo dhib weyn nagu haya dawo dhaqameedyada oo nin waliba inta cilaaji la furtay dadkii la siinayo dawo dhir la isku walaaqday, kuwaasoo qofka maaragtay dhibaato weyn gaadhsiin karaya oo magaranaysa jismi ah iyo kuwa magaranaysaye gudaha jirka aba. waxaa jira dawooyin la isku dardaro oo cosmetic ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oon xataa magaranaysaye say isku qabanayaan boomaatooyinka iyo kimikaalada dawooyinkaasi inta isku walaaqaan dadka ka gadaya. ee qofkaan aqoonta markaan u lixin wixii waa kadeen. saraakiishii ku shaqo lahayd ee wasaaradda caafimaadka hay-addii kantarooli lahayd waa hay-addan xakamaynta daawooyinka. waxaa jira oo waddanka ka furmay warshado daawooyinka soo saaraya. warshado dawooyinka soo saaraya dalka laga furay. wasaaraddeenu ma kormeeri karto, ma dabageli karto, ma qiimayn karto in ay samayso dawadaas ay warshadu soo saaraysa inay quality leedahay, inay dhibaato u geysanayso. waxaa jirta xikmad caafimaad ee qofkii bartay waa yaqaana. qofka farmasiistaha ama qofka dawada gadaya hadduu hal mistake sameeyo hal qof ayaa dhiman kara. qofka warshad dawo samaynaysa jooga oo halkii saac soo saaraya 1000 botol ama 1000 litir oo sharoobo ah hadduu hal wax oo ka yar oo khaldo oo isku dardarka kimikaalka khaldo 500 qof ama 1000 qof baa dhiman kara. marka wasaaradda caafimaadku warshadaha dawooyinka waddanka laga aasaasay waxay samaynaysaa khubaradeeda iyo saraakiisha wasaaradda caafimaadku productiga ay soo saaraanba inay soo qaadaan qalabkii ay ku baadhaan. waxaan arkay xildhibaano halkan joogay oo lahaa ma garanaysaa quality controlka ayay hay-addu ka daba imanaysa. hay-adda quality controlku shaqada wasaaradda caafimaadka dawladda uga igman. wixii caafimaadka ah quality-ga marka laga hadlayo dadku waxba isku khaldaan. shamiitadii qalabkii dhismaha
kuraasida makarafoonadaan ka hadlayna qualitygooda la ilaaliyo marka hay-adda quality waxaasay qiimeyn karaysa laakiin wasaaradda caafimaadku waxay qiimeynaysaa in ay baadho wax walba ay daba gasho si hawlahaas oo dhan loo suurtogeliyo oo diiwaangelinta nidaamyadaas oo dhan loo controlo oo qof dadka shaqaalaha caafimaad noqonaya ee dawada gadaya iyo dadka baadhayaba u noqdaan khubaro waxaa muhiim ah in hay-addan maanta akhriskeeda labaad ku jirta in dabarka laga furo wasaaradda caafimaadku awoodda loo siiyo way gaadi doontaa hadda gobolka banaadir baa lagu eegi laakiin dawladdu maalinba meel bay sii siqaysaa kolba mijo dhiiqa mid baa lala baxaaba ayaa lagu maamaaha maalinba meel baa lasii gaari doonaa marka waxaan runtii aada ugu bogaadinayaa guddiga adeega arrimaha bulshada ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadkaba sida fiican ee qiimaha leh ay usoo gudbiyeen waxaana in la controlo ama dhakhaatiirta ajnabiga imanaysa la controlo in cisbitaalada localka ah ee wadaniga laftooda qiimay ogaado oo qof waliba takhasuskiisii waxaan lahayn buu ka shaqaynaya haddaan aanay hay-adaha awoodda loo sii daynin wasaaradda caafimaadkana shaqadaasi ma suurtagelayso halkan shaqada haddii laga hor istaagana qofka dhibta soo gaadhaysa kow baan ka noqonaya marka xildhibaanada sharafta leh waqtigii salaada la jooga waxaan rabaa guddiga howlka waxaa sirtay maaragtay xildhibaan cabdullaahi ee jawaabtaas haddii uu maaragtay maadaama xeerka ayga keeneen kadib salaadan aadaynaa xeerkan horyaalo aada muhiim u yahay waa isku soo noqonaynaa xildhibaanka qoran oo iska baxan ogaaba waa loo yiri ogaaba xildhibaanka qoran oo iska baxo loo yeero magaciis la waayo waa loo yiri waxaan rabnaa shaqada in daacad laga noqdo walaalayaal marka waa mahadsantihiin markuu xildhibaan cabdullaahi dhamaysto salaadan aadaynaa waa isku soo noqonaynaa waaya xildhibaanada qoran waa joogaan kuwiis qoray waa joogaan marka waa hadlayaan waa siinaynaa dadka kala babaxay marka waa soo noqonaynaa salaada lasoo dukado waxa lasoo noqdo walaalayaal gudoomiye point of order baan qaatay oo waa isii weyda aniga waxaan rabay hal wax inaan saxo dhegaysto asiga si waa siinay asiga ha hadlo gudoomiye aniga waxaan rabay hal wax inaan saxo point of order baan qaatay waa waxba anigu hadda jawaab iyo su-aal inaan ka jawaabo ma imaan waxa uu yimaada gudoomiye saa la socotid sharciga markiisii hore wuxuu ahaa sharciga hawada iyo cuntada isqabsi laba wasaaradod ka imaadaa dib habeen loogu sameeyey sharcigan waxaa lagu koobay sharci dawaa laga dhigay iyo agabka caafimaadka sharcigan hay-adda quality controlka ma quseeyo sharcigan wuxuu quseeyaa wixii dawa ah qodobkaas hay-adda quality controlka waxaa loo reebay wixii cunto ah iyadoo ay cuntada markay tahay ay dawada soo gelayso ta labaad oo aan rabo inaan saxo waxa waaye xildhibaan halkan kacay wuxuu yidhi xanaanada xooluhu ka hadla xanaanada xoolaha noolaha maxaa loogu dareemiyo nooluhu wixii dawaa oo nooluhu qaadanayo hay-addana baalkii u qaabilsan dalkan qorshaheeduna yahay inay ka shaqeyso wixii dawa qaabilsan ama beeraha ha aato ama ha aato xanaanada xoolaha ha ahaatee dhammaan wixii dawaa hay-addana loo qaabeeyey inay ka shaqeyso marka gudoomiye labada qodob baan rabay inaan saxo inkastoo aad u malaysa inaan jawaab bixinayo point of order haddii guddiga qaatana waxaan jeclaha in la tixgeliyo la siiyo waa mahadsantahay gudoomiye xildhibaanka waa mahadsan yahay salaadaan soo dukuno aan soo noqono arrintaan xildhibaanada bannaanka jirib waxaan leeyahay weliba in lasoo laabto la dhegaysto doodeen maaragtay ilaa 10 xildhibaana noo harsan marka inaan dadaalna loo baahan yahay walaal mahadsantii salaad aan soo dukuno aan soo laabano